intii ayaga qadi lahay anaga qadna ka doorbidin. geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka jawaabaya shacab barakacyaal ahaa oo wadada u istaagay kolonyo ciidanka xoogga dalka kuwaasi oo codsanaya inay helaan waxyaabaha nolosha bini'aadamka muhiimka u ah oo ay ugu horeeyaan biyaha ayaa talisyada guutada 7 iyo 16 ee danab xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka jawaabaya baahiyaha shacabka barakacayaasha ayaa maanta gaarsiiyay deeq isugu jirta biyo iyo raashin qoysaskan ka barakacay fatahaadaha webiga Shabeelle ka wado qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada Walaweyn. taliyaha guutada 7 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Axmed Cabdi Cali Axmed Gaashaan ayaa sheegay inay door bideen xoogga dalka inay baahdaan intii ay shacabka fatahaadaha soo barakacsheen ay qadi lahaayeen isagoona baaq u diray ummadda Soomaaliyeed in dadkan ay soo gargaaraan. sida aad arkaysaan dadkan masaakiinta ee halkan ka wada cawaadaya waxaan la kulannay shalay annagu ku gudaysana shaqadeennii maalmeed iyo anoo wada soconna saraakiisheeda ila socota guutada xilligaasoo ay waddada noo istaageen ayagoo gacmaha horsanayo biyaha biyo waxaana maadna u awoodin xilligaas waxaanu tagnay taliskeenii xoogga dalka aan ku lahayn Walaweyn ama Baldogle kadibna waxaan report ka siinay taliyihii xoogga oo u sheegnay dhibaatada meesha ka jirta taliskeena waxaanu soo amray waxa annaga asarka nagu jira inaan u soo qaano dadkan iyo biyo annagoo midaysan oo xoogga dalka ka watarsan guutada 7 iyo guutada 16 ee danab wixii asar ku jira soo faarujinay ummadana soo gaarsiinay intii ayaga qadi lahay anaga qadna ka doorbidin. insha Allah taliyahana qeelaanta waa u wadaaho asaa dawladda aan u sheegnay inuu dadka qeelaan u diro oo dawladda u sheego si dadkan loo soo caawiyo. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Walaweyn ayaa isna dhankiisa dawladda federaalka hay'adaha gargaarka iyo maamulka koonfur galbeed ugu baaqay inay shacabkan la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo. waxaan soo gaarnay dadkii ka soo barakacay masiibooyinkii maaragtay Shabeellaha dhexe webi Shabeelle ay ka yimaadeen fatahaadihii iyo biyihii dhulkii ay dhibaateeyeen iyo dadkii ay dhibaateeyeen marka maanta hadda aniga aan taagnahay ciidamada xoogga dalka guutada 7 iyo danab iyagoo iskaashinayo waxay awoodooda dhan tahay oo masaakiintan iyaga ay gaarsiin karaan bay soo gaarsiiyeen. waxaan leenahay dawladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeed inta oo mudan waxaan ka codsanaynaa anagoo ah maamulka degmada waxaan codsanaynaa masaakiintan in la soo gaarsiiyo wixii gargaar iyaga ay mudan yihiin. ugu dambeyntiina shacabka barakacayaasha ayaa ka mahadceliyay jawaabta degdega ay bixiyeen ciidanka xoogga dalkeena iyo gargaarkii maanta la soo gaarsiiyay. walaalayaal ma alla jisi kale waa mahadsantihiin bare waa faraxni waxaa noo sii dheer walaalayaal waxaa noo sii dheer dhibaatooyin badan oo na hayso oo hintis ilaahay diidin oo bariga leh raashin oo leh bacyooyin oo leh kii kale seenyeer oo leh bariga ku roon yahay maacuug badan oo leh aan u baahanahay intaan joognaa. ciidamada qalabka sidina ay gallamankaayna joogto ma hadan gallatan ugu hayno ciidamada si fiican noo caawisi oo garabkayna taagan hadda oo meel naga jirin garab taagan oo nooga on ku mahadcelinayno dhibaatada unaga nala kudboon siday nooga soo gurmudeen taas ciidankan mahad ugu haynaa iyo bacdi ciidamada qalabka sido ay bacdi ihsaan iyo inay taw garabeeshan anan ka halna an rabno si cadaalad sagnaan inay bacdi alxamdulillah nooga soo gurmudaan dhibkaana ay naga saaraan ilaahay mahadle ciidanka mahadle weyno waxad ciidankana alla isguuleeyo carada shaydaankeeda badan wixii shaydaan oo dabahaayo ilaahay amma aska dhigo ilaahay tusbaxgo aska dhigo wixii dhibaayo taasna ciidankan ugu mahadcelinaynaa hataa hadda raashin noo haynan geedahaba noo soo shiida adanka dawlaha ee noo bacdiyaalka nooga soo duubay noo keena waa isku cunaynaa aan jecelnahay ciidamada ciidadeeda wixii waa aragnay bariga waa nacaawisi alxamdulillah ilaahay ciidanna lama dhigo ciidanka dharkiisa dadweynaha waa dadweynaha hadii haysan ciidanka naftiisa dharhaama socdaa unuguna bariga hadii ciidanka saddex walxaad oo bacda alxamdulillah ciidanka waajibkiisa aha jirto la dagaalanka difaaca la dagaalanka jahliga la dagaalanka waxbarashada intii oo u qaabilsaneed dibkii soo baxo oo
gaashaan dhig u ahay beriga garabka inay tuuran yihiin taasaan guul ku joognaa. Cabdifitaax Aqyaar, codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gobolka Shabeellaha Hoose.